channelkeena Sportska fadlan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Subscribe noo saar channelkeena si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo daawada muuqaaladeena cusub. Like hanaga iloobin, share noo dheh maxaa ka cusub ciyaaraha. Waxaa ka cusub ciyaaraha maanta weeraryahankii hore ee Man United Berbatov oo si aan caadi ahayn ugu jeesjeesay kooxda Liverpool. Messi oo hal arin ugu dileecay maamulka Barcelona kadib guushii ay xalay ka gaareen Inter Milan. goobta lagu ciyaari doono kulanka kooxaha Chelsea iyo Man United ee Carabao Cup oo la shaaciyay. uma adkeysan doona Pogba shaxda Man United xitaa haddii uu diyaar yahay. Tababare Valverde oo farta ku fiiqay halka daciifka ay ka ahayd kooxdiisa Barcelona kulankii xalay ay dheelaysay. xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa shaaca ka qaaday xilliga la ciyaari doono kulanka adag oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Chelsea iyo Man United. wareegga afraad ee Carabao Cup waa kulan labada kooxood ay ku ciyaari doonaan dareen sare oo soo bilowday kulankii furitaanka horyaalka Premier League ee ciyaareedkan. markaasoo ay Blues booqatay garoonka Old Trafford waxa uu kulankaasi ahaa mid ay Manchester United ku adkaatay 4-0 ugu adkaatay naadiga Chelsea, waxaana sababta ay haatan xidigaha uu hogaamiyo macallimow Frank Lampard sida weyn u sugayaan in ay kulankaasi ka argutaan Red Devils. kulanka ayaa qabsoomi doona sida qorshuhu uu yahay maalinimo Arbaca habeenka taariikhdu ay ku beegan tahay 3 bisha Oktoobar, waxaana uu ka dhici doonaa garoonka Stamford Bridge oo ay iska u leedahay naadiga Chelsea kaasoo ku yaala galbeedka magaalada London. labada kooxood oo xaaladooda haatan ma ahan mid wanaagsan marka loo eego heerka labadooda laga filanayay bilowgii xilli ciyaareedkan. Blues ayaa wax yar qaab sare ku jirta marka loo eego naadiga Man United. kubadda cagta ee Barcelona iyo dalka Argentina ayaa ku dhaleeciyay maamulka kooxdiisa Barcelona sababta lala xiriirinayo qaabka socdaalka ay ku baxday xilliyada diyaar garowga ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka. kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa muujiyay aragtidiisa ku aadan si weyn ugu dhaawacday kooxda iyo tababarkiisa. Messi ayaa ka qayb galay guushii ka gaareen 2-1 kooxda Inter Milan oo xalay ka dhacay garoonka Camp Nou ee tartanka ka tirsan kulamada labaad ee guruubyada F tartanka Champions League. Messi ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa: waxaan ku soconaa wadada saxda ah, waxaan ognahay inaan ku jirno xaalad adag, laakiin hareeradeena iyo dhammaan kooxaha kale ee waaweyn ee Yurub waxay ku nool yihiin xaalad adag iyo bilow adag ee xilli ciyaareedka ah. waxay ahaayeen qodobada ugu waaweynaa ee ciyaaraha. fadlan subscribe to channelkeena Sportska si aad u hesho waxyaabo fara badan oo ciyaaraha ugu baahan tahay. si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya oo daawada channelkeena, subscribe noo saar, gambareelkana furo si aad ugu horeyso daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena cusub. Like iyo share hanaga iloobin asxaabay. marka adiga kale idin sugaynaa share iyo like iyo wax walbaba nagu dadaal bal.